may ahayn dhacdadii maanta ka dhacday gudaha dugsiga Nuuraddiin ee inamada wax indhaha laga qarsan karo. Su'aasha ugu badan ee ay dadku isweydiinayaan ayaa ah waa maxay sababta keentay kacdoon intaa le'eg oo ka dhan ah iskuulkan. Balse intaynaan ka jawaabin su'aashaas, aan wax yar eegno xaaladdu sida ay ku bilaabantay iyo khasaaraha soo gaadhay iskuulka. Sida ay ii sheegaan arday xoogaal ah, falku waxa uu bilaabmay 10kii subaxnimo oo ah waqtiga ay ardaydu ka soo baxaan ama ay u soo baxaan nus saacaha. Waxaa barxadda dugsiga isku soo urursaday arday ka mid ah dugsiga oo u badnayd fasalada 2 iyo 3. Isla waqtigaa waxa u yimid maamulka oo isku dayay inay ardaydaasi kala kaxeeyaan, balse waxaa halkaa ka dhashay buuq iyo sawaxan, taasi oo sababtay in ardaydii kalena isku soo baxdo. Waxaa la bilaabay in ugu horreyn lagu gadoodo maamulkii dugsiga oo iyaguna miciin biday xafiis ka mid ah xafiisyada dugsiga oo isku soo xiray. Intaa dabadeed, sida aynu ka dheehan karno sawirada iyo muuqaalada, ardaydu waxa ay u kaceen inay burburiyaan qalabkii iskuulka sida kaamiradihii, desktopyadii iyo qalabkii kale ee loo adeegsanayay xafiisyada. Haddaba aynu soo noqono su'aasha ugu muhiimsan oo ah sababta keentay kacdoonkan. Arday la yidhaahdo Maxamed Axmed Jaamac oo ku magac dheer Xaynoosh ayaa bartiisa Facebooka ku faafiyey qormo uu ciwaan uga dhigay Nuuraddiin iyo COVID-19, oo sida uu sheegay uu kaga hadlayay in dhammaan waxyaabihii iyo qalabyadii uu dugsigu sheegay inuu kaga hortegayo COVID-19 aysan waxba ka jirin, isla markaana ay haysiis un ahaayeen. waxaana uu yidhi isagoo arrintaa ka hadlaya. iskuulku gudbiyey oo duubay oo ku saabsanaa sidii iskuulku ula tacaalay xanuunkii COVID-19ka ee ardayda inuu u soo kordhiyey qalabyadaas oo keliya xayasiinta uun laga arkayay ee wax ardaynimo marka arday la yahay iskuulka la joogo waxaanan helay ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in sababta ku kaliftay inuu qormadan baahiyo ay ahayd si uu u caddeeyo waxa ka jira dugsiga maadaama uu isagu xogagaal yahay. qoraalka waxa igu dhaliyay ee igu kalifay waxa weeyaan inaan bulshada xayasiiska beenta ah ee loo soo gudbinayo iyo aan runta gaarsiiyo oo u sheego sida xaqiiqada ay tahay maadaama xogagaal ah arday ka iskuulka sababta la yariyayna waa maxaad runta u sheegaysaa weeyaan. Maamulka oo iyaguna dhankooda la hadlay warbaahinta ayaa sheegay arrintaa ka duwan in ay ku kaliftay wiilka inuu qormadan sameeyo. waxaana uu yidhi inaan habsaamay oo iskuulka intuu ka soo daahay lagu yidhi joogso sidii nidaamku ahaa, oo markii la joojiyey habsankii iyadoo aan maamulkii rikoord garayn iska tago kalaaska galay laga daba tago lagu yidhi kaalay qalad baad ku jirtaa, ardaydii kaloo habsaamo halkan joogaad amar diidda samaysay iyo rikoord buuggii loo gelinayay dhacdada maalinlaha iskuulka qof waliba wixii uu geysto. habeennimadii baa inanku qoraal uu ku soo qoray bahalkan Facebooka, inankii subaxnimadii isagoo habeenkii markaa wuxuu qoray iskuulka iyaga been baa ka socotay xilligii koroonaha ololihii cuslaa lagu jiray fasaxa laga soo noqday ayaa iskuulku been sheegay. disinfectant tunnelska waxaan la idhaahdo ama buufinaya ardayda ayaa la soo dhigay, faraxal baa la soo dhigay, wasaaradda imanaysa iyo guddida muxuu hayay COVID-19ka been baa loo sheegay. adigu wax nooca waxaa kale oo maamulku sheegay in aanay garanayn ilaa hadda sabab weyn oo kalifi karta inay ardaydu gadoodaan. uu sii batay ilaa uu gaadhay heer la xakamayn kari waayo oo ay iskuulkii ardaydii wada jajabiyaan. runtii ujeeddada runta ah ee arrintaa mashaakilka intaa lee ka dambaysa ma garanayno.